shirweyne lagu qabtay fagaaraha beerta xurriyadda magaalada Ceerigaabo ayaa waxaa halkaa lagu soo bandhigay murashaxa Siciid Cabdulle Guuleed oo ka mid noqon doona xubnaha doorashada wakiilada Soomaaliland 2015 uga tartami doona gobolka Sanaag. Munaasabaddan ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira dhammaan qaybaha bulshadu ka kooban tahay ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay Chief Caaqil Xuseen Xasan Cali iyo Caaqil Cabdullaahi Xaaji Faarax oo xuquuqaasha beesha murashaxana ka soo jeedo. waxaan u qabanay xafladda haddaan nahay heerka Maxamed Muuse xildhibaankii aan ugu talagalay inuu tartanka ka qayb galo doorashada baarlamaanka iyadoo talada reerku ay muddo wadeen waa la gorfeeyay waxa la soo ururiyay taladii waxa la soo xirayo waa lagu soo riday Siciid Cabdulle Guuleed inuu noqdo xildhibaanka tartanka beelaha kale aan walaalaanahay oo gacan saar kaleenahay oo had iyo Jordan iskaga dhownahay iyagana inay nagu taageeraan hadalku waxa loo baahay waqti dheer weey rag badan oo mas'uuliin iyo dad badan waa fadhiyaa waxaan ku soo gaabinayaa Siciid Cabdulle Guuleed oo guriyo waxaan halkan ka shaacinaynaa ninka la yiraahdo Siciid Cabdulle Guuleed oo aan u dareenka iyagu u nageliyay in uu tartanka ka galo baarlamaanka soo socda ilaahay idinkii beelaha aan walaalanahay wada deganahay wax walba inaga weynaga dhaxayaan waxaan idinka doonaynaa taageero waxayaguna halkaasi ka hadlay Chief Caaqilka guud ee beelaha Ceerigaabo Jaamac Ismaaciil Muuse Chief Caaqil Axmed Khayr Chief Caaqil Ibrahim Cabdi Saalax Chief Caaqil Xasan Jaamac Faarax Chief Caaqil Axmed Dhagaxle afayeenka beelaha Habar Yunis Bari Caaqil Maxamuud Dirir Caaqil Axmed Jaamac Ismaaciil iyo wakiil Caaqil Ciise Xaaji Shire kuwaasoo dhammaantood beesha xildhibaankan soo xulatay uga mahad celiyay isku duubnaanta iyo wada jirka ay arrintan ka muujiyeen sidoo kalena iyagoo sheegay dhammaantoodba kalsooni buuxda inay ku qabaan murashaxnimada Siciid Cabdulle Guuleed beelaha deegaankaana ay ugu baaqeen inay codkooda ka qayb galiyaan xildhibaankan cusubna ay dardaarno halkaasi uga soo jeediyeen Siciid Cabdulle Guuleed alle maaha nin berito caleemo loo daadinayo maaha waxa weeye nin wadanka iyo dadka labadaba u shaqo tagaya marka reerku hadii ay martay Siciid Cabdulle Guuleed ay martay arintaas u doorteen waxaan leeyahay annana waanu idinku barbar taaganahay hadii aanu nahay martay reer Ceerigaabo inuu martay uu inoo soo baxo waana nin dadka oo dhan ka dhaxaya nin qoys kaliya ah maaha Siciid Cabdulle Guuleed oo ay iska soo xuleen beesha Maxamed Muuse annana waa hambalyeynayna waana la qaadanay hadaynu nahay reer Ceerigaabo inaynu bowga iska raacno maaha waa inaynu dhanahayaa wax inoo qaban karaa Siciid Cabdulle Guuleed waa nin Soomaaliya oo dhan wax u qaban karaa ama Soomaaliland waxaa la yiraahdaa ugaashu waa ka dhaxaysaa baa la yiraahdaa dadka waxsayse tahay ninkaan mudakar ahayna waxba qaban karin ma taageerayno laakiin oo dalka iyo dadka wax u qabanaya aad baan u taageeraynaa Siciid Cabdulle Guuleed waa u qalmaa baarlamaanka haddii beeshii Maxamed Muuse ama dadku urur suguuba u yaqaanaaye hadday soo doorteen annakuna haddaanu nahay beesha Ceerigaabo gobol Sanaag degmada waanu ku tahniyadaynaynaa waanuna idinla qaadanay reeraheenna kale reerkaas waa keensaday cidda kale ma daba socoto reeraheenna kalena cid baynu keeni doonaa wax la yidhi fardaa waraabe oo xamar ciniq isaga waa inaynu ciniq ugu wada daraa ciniq waa inaynu ugu wada daraa beesha Maxamed Muuse sida ay u soo xushay Siciid Cabdulle beelaha kale reer Ceerigaabo yeyda iska soo tuurin dhagxaane ha keenaan Siciid Cabdulle kale annagu waxaanu leenahay beesha Maxamed Muuse ninka soo dooratay Siciid Cabdulle Guuleed gawaydin la dooranay dhinaca xildhibaanada golaha deegaanka Ceerigaabo Maxamed Warsame Xirsi Caydiid Faarax Xirsi Xasan Nuur Cabdullaahi Jaamac Sulcayn iyo Qamar Maxamed Saalax iyaguna halkaasi ka hadlaya iyaguna ka sokow taageerada iyo kalsoonida murashaxan u muujiyeen waxay beelaha kale ee gobolka Sanaag ugu baaqeen in dadka loo soo taagayo murashaxnimada doorashada wakiilada ay noqdaan dad tayo leh oo la mid ah murashaxan maanta fagaaraha la soo taagay waxaan hadalka ku soo gabagabeynayaa Siciid Cabdulle Guuleed waa nin u qalma gobolka waxqabadkiisa aanu ka filayno ilaahayna ha ku guuleey anigoo ku hadlaaya golaha deegaanka degmada Ceerigaabo xildhibaanada intaan halka ku sugnayn anigoo ku hadlaaya afkooda
anigoo ku hadlaaya afka beesha habar jeclo oo aan xildhibaan u ahay waxaan leeyahay waanu adinla qaadanay Siciid Cabdalle Guuleed waanuna dooranay Siciid wuxuu yahayba waa la soo sheegay Siciid reer Ceergaabo way wada yaqaaneen waa nin reer Ceergaabo ah waa nin reer Ceergaabo asliya nin xoolo doon u tagay maaha daldaloolka aanu malaynayaa inuu arkay meesha yaala sida darteed Siciid inuu isu sharxay baan anigu aqligaygu isiinaya Siciid Cabdalle Guuleed sida ay beeshu soo xushay oo ay u asiibtay oo aanay u hilmaamin annana waxaanu leenahay waa idin la qaadanay waana idin la dooranay waana ku ducaynana waana ku hambalyeynana waxaanu leenahay Siciid waanu idin la qaadanay idinna waa sugteen aqoon-yahanada Siciid Jaamac aw Siciid Axmed Xaashi iyo Naasir Maxamed Cali oo iyaguna fogaaraasi ka hadleeya mid kastaaba isagoo ka sheekeeyay dhaqanka wanaagsan iyo aqoonta murashaxani leeyahay waxay dhinacooda ballan qaadeen inay taageero mug iyo miisaan bana isla barbar taagi doonaan Siciid Cabdalle Guuleed aad iyo aad baan u taageeraynaa waan soo dhaweynaynaa ilaahay hadduu ka dhigo marka dambe iyo marka horeba waxaanu leenahay welcome maanta waa maalintii ugu horeysay xaflad istaag halkan waxaan ka taageeraynaa Siciid Cabdalle Guuleed oo ay soo diyaariyeen beesha urur suge ama beesha Maxamed Muuse ninba sidoo u yaqaano waxaan leenahay waa asiibteen ilaahayna waa idin waafajiyeen ninkii ugu mudnaa ayaa soo taagteen inuu nimanka qurba joogta oo isku soo kaaya hadlayn haddaanu sanaagnahay ha isku soo kaaya hadlayn nin tagal fadhiya oo goobta jooga oo guriga og oo iskuulka og oo malcaamadda og oo masaajidka og oo meel walba nagaga warhaya ayaan doorkan dooranay ugu dambeyntiina salaadinta iyo boqorrada Suldaan Siciid Suldaan Cali Ducaale Suldaan Cali Yuusuf Cabdi Badacas boqor Maxamed Nuux Aadan iyo boqor Faysal Cismaan Faarax oo munaasabadda ka hadlaya waxa hadalooda kamid ahaa waxaan ka warhayay in reerku markuu fadhiyay rag badani ku loolomeen kursiga in sidii dimuqraadiyaddu ahayd raggii Siciid la tartamayay isaga sanduuq loo dhigo halka nasiibkiisii ka soo baxay waxaan ku darayaa oo kale midnimadan waan kula dardaarmayaa in maalintaas codku yimaado maadaama la keenay laga ilaaliyo gorgodood kale codkuna maalintaas sidaa u muuqdo wixii carafee kale ilaahay Siciid lama uu helayaa qalinkana ilaahay baa haya oo ku dhawaaqno ka beel ahaan ka shakhsi ahaan iyo ka wada jir ahaan reer Sanaagba musharaxa beesha Maxamed Muuse Siciid Cabdalle Guuleed dhammaantiina waa ku mahadsantiin raacista aan ugu raacdeen ajibista aad timaadeen iyo xulista aad u bogteen oo aad qirteen inuu yahay nin hufan karti leh daacada diin leh dal iyo dadba lagu aamini karo murashaxa Siciid Cabdalle Guuleed oo isaguna munaasabadda soo gabagabeeyay ayaa wuxuu yiri waxaan filanayay inaan ahay nin gobolka u siman oo wajahad iyo waji wanaagsan ku leh oo dadku ay jecel yihiin baan filanayay inaan ahay maanta iyo cadaatay insha Allah ta'ala waan arkaa maanta waa leeydhan yahay tii aan filanayay baan arkay marti waxaan idinka ahay insha Allah ta'ala markaynu foodka gaadhno warqadda fartiina ayaan u baahanahay insha Allah ta'ala ina igu caawisaan soo sida diyaar u Ilaahay subhanahu wa ta'ala way nagu guuleynaya waa ku guuleysan doonaa waana isku baran doonaa wixii dambe wixii horena raggii hore ka soo shaqeeyay intaasaan ku soo koobaya insha Allah ta'ala aad baa u mahadsantihiin Abdullaahi Xuseen Darwiish shabakada caalamiga oo Weyn News magaalada Ceergaabo